xafladan oo ahayd mid lagu dooranayay gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika ayaa xalay waxay ka dhacday magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. doorashadani lagu dooranayay gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano culimo diin dhalinyaro ganacsato habeen waxay dhamaantood si isku mid ah u soo dhaweeyeen xafladani lagu dooranayay gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika. waxaa jirta maamaha Ingiriis oo oranaysa April showers bring me flowers. roobka April wuxuu keenaa ubax may. waxaad caawa halkan u fadhidaan waa dadaal aad ku doonaysaan inaad ku hiigsataan mustaqbal dambe. deetana ay ka midowdo siday wax uga dooran lahayd hogaankii ayaga maamuli lahaa. waxaan muran badan ka taagnayn in waxa weeye dadka ku dhibaatooba meel walba ama waxa weeye qayb kasta oo waxa weeye Soomaalidu ay joogto ama waxa weeye wadamada Soomaalidu ay ku nooshahay inay u badan yihiin dhalinyaro iyo magaca ururka madaxa bannaan ee dhalinyarada Koonfur Afrika. waxaan rabaa marka ugu horeysa ugu baaqo sida wanaagsan ee dhalinyarada caawa isugu keenay ama la isugu timaaday inay hawl ugu qabtaan isla markaasina hawsha loo doorto ay u dhabar adeegaan waashii loo dhacdaa dadka Soomaaliyeed inay badan tahay daliishooda. waxaana qabashada gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika u taagnaa laba musharax kuwaasi oo kala ah Xarbi Cabdi Xasan iyo Maxamed Cumar Talyaani. waxaana xilka ku guuleystay Maxamed Cumar Talyaani oo helay codad gaari ilaa 153 cod halka uu helay musharax laga guuleystay ee Xarbi Cabdi Xasan 67 cod. Xarbi Cabdi Xasan oo ah musharax laga guuleystay oo halkaasi ka hadlay ayaa hadaladiisa waxa kamid ahaa dareenkayga oo kooxay dareenkiisa la qiyaasay laba ka soo koobi karo dareenka tan laga guuleystay laakiin waxa la yiri inaan muldaraysan ma guuleysto. waxaan isleeyahay maanta laga guuleystay inaan bari guuleysan doono. waxaan ku faraxsanahay sida dhalinyarada Soomaaliyeed ay codkooda u dhiibteen ay ugu doorteen qofka isdhihi karaan waa maanta uu hogaamin karaa ama hogaan dhalinyarada Soomaaliyeed wax ka bedeli kara weeye. waan ugu hambalyeeyaa saaxiibkay Maxamed Talyaani. waxaan jeclaan lahaa inaan saaxiibkay maadaama aan ahaa gudoomiyihii hore aan mikrofoonka anigu ku soo dhaweeyo Maxamed Talyaani. idinkuna aad iyo aad baa u mahadsantihiin. gaar celinayaa dhammaan codbixiyaashii kuwii codkayga siiyey iyo kuwa aan codkii siinin intaba oo ku cabiray aragtidooda iyo qalbigooda daacadda ah. waxaan hambalyo gaar u dirayaa dhammaan guddigii soo qabanqaabiyey. waxaan sidoo kale mahad gaara u celinayaa walaalkay Salaad oo ka baxay doorashada intay bilaaban ka hor. mar kale waxaan u mahad celinayaa walaalkay Karim marnaba waan ka guuleystay Xarbi ismalihi waa ka guuleysatay Xarbi xaqiiqi laakiin waa nin adag oo howl adag soo qabtay. waan isleeyahay ummadda Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika wuxuu soo gaarsiiyey meel fiican oo laga hana qaadi karo waqtigan. Xarbi Cabdi Xasan walaal ku soo dhawow wada shaqaynta gudoomiye ku-xigeenka dhalinyarada Soomaaliyeed wakiilka ii qaabilsan caasimadda dalka ee Koonfur Afrika. Dirish Sheekh Axmed Guure telefishinka caalamiga ee Kalsan dalka Koonfur Afrika.